waxaan u mahad celinayaa marka hore mulkiilaha hoteelka oo sida wanaagsan ee halkan inoogu sharaxay. waxaan kaloo si gooni ugu mahad celinayaa shirkadaha waaweyn ee iyaga la-aantood ayna qabsanteen carwada tan oo ay ka mid yihiin dahabshiil, telesom, DB World iyo Last Group. waxaan kaloo u mahad celinayaa saxaafadda oo iyadu xafladii furitaankii si live inoogu sii deynaysay hawada meel kasta laynaga daawanayay. aad baa u mahadsantihiin. waxaan u mahad celinayaa kaloo shaqaalaha carwada soo qaban qaatay u shaqaynayay. waxaan u mahad celinayaa ganacsatada ka soo qayb gashay. aad baad u mahadsantihiin. waxaan filayaa oo rajaynayaa in himiladiinay ahayd inaad heer ka gaadhaan 7 cisho wax iibkiinii in uu idin heer galay. marka hore anigoo ku hadlaya magaca Hotel Guuleed oo gobashan adigu sharafteen amba chamberka ka timaado qorfa tijaara amba dadweynaha oo ah rugta ganacsiga ee Somaliland inta ka joogta ay matalaan. waxaa keenay quruxda waxa weeye wadajirka. waxaa keenay quruxda kala jaadka aynu nahay. haddii dukaamo kala jaadi midna meel laga furo iyo haddii 100 dukaan meel la iskugu keeno way kala qurux badanta. marka quruxda waxa keenaysa inta qof ee ku soo dhiiratay inay ka soo qayb gasho iyo dadweynaha oo sharfay aba ka bareeray aba yimidba inay xafladan ka soo qayb galaan carwadan. marka ugu horeysa waxaan mahad u celinaynaa haddii aan nahay ganacsatada waaweyn ee carwada sideed ka soo qayb gashay madaxda chamberka ee suurto gelisay inay carwadatan sideedaad qabato. runtii juhdi badan bay geliyeen, ganacsatadana u muhiim weeye. waxaana kula u bandhigaan inay naga soo qayb galaanta dambe. marka carwadani muhiim bay u tahay waddanka. dadkaa isku bartaa, ganacsatada isku barataa, haddii dadii kale yahay ganacsigaa ku kubca. marka aad iyo aad baan runahaanta horta chamberka uga mahad celinayaa qabashada ay noo qabteen carwada sideedaad. marka labaad waxaan u mahad celinayaa macaamiishii timi special dahabshiil group anigoo ku hadleynaya dahabshiil group. macaamiisha noo timi ee ka adeegatay oo runahaantii sanadkan xagbaaf ahay. aad iyo aad ayaa runtii qaybaheeda kala duwan ay macaamiishu isugu timi. dad aad u tiro badan oo sanadkii hore ka badan ayaa na soo booqday oo adeeg fara badan aan u fulinay. aad iyo aad baan macaamiishaasna ugu mahad celinayaa. waxaan kaloo mahad celinayaa ganacsatada ka soo qayb gashay carwada sideedaad oo iyaguna qayb ka ahayd inay la isdhaafsado baaca mushtariga meesha yaalla, ama ha ahaato ganacsatada waaweyn ama kuwa yar ahaatee annaga dhexdeedii baa isdhaafsanay ganacsigii oo wax kala iibsanay. aad baan qoladaan ugu mahad celinayaa. waxaan kaloo mahad celinayaa guddoomiyaha hoteelka Cali Cumar Guuleed oo run ahaantii u dhabar adeegay carwada sideedaad oo ay isugu timi oran karo Somaliland iyo inka baxsan waa isugu timi oo waxaasoo ummada kala horayay oo hoteelkiisu u dhabar adeegay. Cali Cumarna waxaan leeyahay hambaliga ayaan ku leeyahay. Cali Cumarna aad iyo aad baa ugu mahadsantahay. waxaan si gaar ah halkan uga mahadnaqayaa rugta ganacsiga oo inoo qaban qaabisay carwadii sideedaad oo runtii qiimo badan ay ka muuqato iyo in xoog badan iyo juhdi badan la geliyey marka loo eego qaabka loo soo qaban qaabiyey, qaabka loo habeeyey, qaabka looga soo qayb galay iyo qaabka loo soo gunaanaday intaba. waxaan kaloo iyaduna si gaar ah u mahadnaqayaa shaqaalihii carwada qaban qaabinayey ee ay ugu horeeyaan Cabdishakuur iyo gruubkiisu
oo runtii nidaam fiican oo ah kolba wixii looga baahdo ama qaabka loo habaynayo ee carwadu u socoto runtii si fiican uga qayb qaatay waxaan iyadana aan la dhaafi karahayn gudoomiyaha maamulaha hotel guuleed cali oo runtii inoo sameeyey waxyaabihii hodheel lagu aamini jiray ugu horeyso space wanaagsan adeeg hufan raaligelin iyo adeeg mar kasta joogto anytime aad heli karayso isagana aad baan ugu mahadnaqayaa waxaa kaloon si gaar ugu mahadnaqayaa shirkadaha Telesom Group ee halkan fadhiyey Dar es Salaam Bank, Samgas, MAT iyo Telesom oo runtii muujiyay dhowrkii cisho halkan shaqada ka socotay dhabar adayg adkaysi iyo in loo adeego wixii halkoo yimid oo ahaa in macaamiisha shaqaalaha la raali geliyo waxaan kaloo si gaar ugu mahadnaqayaa macaamiisha faraha badnayd ee Telesom ka socotay oo runtii saddexdii cisho ugu horeeyay culays xad dhaaf ah ku keentay carwada waxaan fara badan la keenay annagoo raali gelinay macaamiisha iyo dadkayga sharafta leh ka soo qayb galay waxaanu go'aansanay adeegii aanu ku bixinaynay intii carwada maadaama ay xamili kari waayeen culayskii saarnaa inaynu jajabino dhammaan xarumaha shirkadda si loo raali geliyo shaqaalaha ka soo qayb galay waxaan ku soo gunaanadi lahaa carwadani waxay tustay awoodda dhaqaale ee dalku leeyahay inaynu nahay dad u dhibirsan ama u heelan inay samayn karaan ama hirgelin karaan ama qabsan karaan wax kastoo ganacsiya oo la soo bandhigo runtiina waxa weeye waa ummad tashatay horumar badan ka muuqdo runtii horumarkaa iyo nabaddaa socota amnigaa ka kowa waxaana ugu horeeya inuu ku taagannahay ama bilariska dalku ku dhisan yahay waa dawladda markaa run ahaantii waa inaan ilaalinaa amniga anigoo ku hadlaya magacii rugta ganacsiga guud ahaan madax iyo shaqaale iyo guddi fulineedba waxaan u mahadnaqayaa ugu horeyn runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo naga soo ajiibay nagala aqbalay inuu inoo furo carwadii sideedaad ee aynu ku qabanay habeenka caawa maalinka maanta magaalada Hargeysa waxaan kaloo u mahadnaqayaa wasiirka ganacsiga oo runtii intii uu joogay wasaaradda ganacsiga wax badan la qabtay iskula soo dhaweeyey wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo dalxiiska iyo ganacsatada oo wax badan danahooda uu ku murma uu isku soo dhaweeyey kuna hawleeyahay isagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa ka soo qaybgalayaasha guud ahaan waaweyn iyo yaryarba oo aanay la-aantood suurto gasheen hawshan quruxda badan ee loo qabsantay waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa Cali Cumar Guuleed mulkiilaha hotelkan oo runtii 48 saacadood aan habeen saacad iyo midib toona ka dhex bixin intii uu habeenayay quruxda ka muuqata meesha aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa inta markaan ka gudbo carwada sideedaad ee aynu qabanay marka loo eego da'da uu jiray dalkeenu waa 7 sanadood runtii waa wax weyn oo lagu faano oo aad iyo aad aynu uga horeyno dalal badan oo muddooyin fara badan jiray oo aan intaan la qabsan taasi waxay tusaysaa sida ay dadkeenu ugu wacan yihiin ama khibradda ugu leeyihiin ganacsiga waxa kaloo ay carwadani kaga duwan tahay carwooyinkii hore in ka badan 25% haddaan horeba 30 inta halkaas ka xigta oo dhami waxa weeye wax soo saarkii dalka oo ah runtii wax lagu faano wax soo saarkii dalka waa warshadihii waa beerihii waxa weeye iyo muxuu ahaadii iyo kalluumaysigiiba waxay suurto geliyeen inay lacag badan oo adag inoo soofgareeyaan waxay suurto geliyeen inay gaadhaan heer ay dibadda wax u dhoofiyaan wax badan hadday furniture tahay hadday biyo tahay hadday sharaab tahay hadday kookoola tahay waxa inoo yaallo oo dhami waa wax inoo soofgareeya lacag adag oo dibadda inooga bixi jirtay oo aynu maanta ku faanayno inaynu horteenna ku iibsanno dibaddana u dhoofino inta kale ganacsatada adeegga inoo samaysa iyaguna waa ogtihiin heerka ay taagan yihiin inaan caalamka
halka ay gaadhsiiyeen adeega isgaarsiinta iyo haddii xogmaayo baananka oo ay daarasalaam iyo dahabshiil bank bay noo sameeyeen inaynu ka adeegano oo ayna siiyaan maalgelin halkii aynu markii hore beedkeena sallada ku ridi jirnayna maanta waxay noo kala harhaan oo iyaguna ay maanta meesha doonto dunida kaaga furayaan lc lacagtaa doontana ay ku maalgelinayaan oo ku amaahinayaan marka aad shuruudaha ka soo baxdo iyagana waan u mahadnaqayaa runtii carwadaa sideedaad waxay noo muujisay baaxadda dhaqaalaheenu leegyahay oo aan ku boorinayo ganacsatada guud ee wax soo waarida inay iyaguna u bedelaan oo ay lacagtooda dalka u furaan si shaqaalana loo abuuro waxtarna loo abuuro inay alaabtan ay soo iibinayaan ee wakiilada u yihiin warshado u bedelaan ay dalka ka sameeyaan dhallinyaradeeduna ay shaqo uga hesho lacag adagoo badan inay loo seefgaroodo waxaan qabaa inay kari karayaan qoladana waan ku boorinayaa tacab badan bay naga muuqdeen 7 cishaynu shaqaynaynay waxbaynu kala iibsanay waa isku barannay haddii ilaahayna gaadhsiiyo sanadkiisana waxaanu idiin ballan qaadaynaa inun tan iyo mid kasii qiimo badan waanu ka faa'iidaysanay wixii qaladaad iyo saxbayna soo maray aanu ka faa'iidaysanay baanu idiin qaban doonaa waana idinku soo dhaweynaynaa mar dambe iyo mar horeba waxaan idinku mahadnaqayaa sida uga soo qayb gasheen ganacsatada sida aa waktiga uga faa'iidayseen iyo sida dadka wax uga iibiseenba iyo sida magaciina u hirgeliseenba aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa shirkadaha waaweyn ee halkan laga magacaabay ee shanta ah haddii aanay iyagu jooginna runtii oo sponsor ka noqon oo aanay lacagta maalgelintaa hore meesha lagaga shaqeeyo bixin iyana may suurto gasheen waa u mahadnaqaynaa iyo kuwii ku xigayba iminka waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka ganacsiga marka uu hadalkiisa dhameeyana waxaanu bixin doonaa shahaadooyin laga raalli ahaada kulligii ma wada gaadhsiin karno marka hore inta waaweyn baanu siinaynaa marka dambena qol walba ilaa maanta intaan la rawaxin waxaanu ugu geynaynaa shirkad wal oo halkan ka soo qayb gashayba shahaadad bay nagu leeyihin oo aanu siinaynaa taa ku bushaaraysta waxaa kale oo aanu idiin sheegaynaa wakiilahana uu naga aqbalay caawa ilaa labada inaad ka xidxidhan kartaan alaabta oo aad guuri kartaan ilaa galabtana waa shaqaynaysaan haddii alla yidhaa wixii waaweynaydaa rari karayna berrita waa usoo noqon kartaan laakiin wixii alaabay aad rari kartaanna marka caawa carwadu xidhanto wuxuu wakiiluhu noo ballan qaaday sidii horeba nooga shaqaynayey ilaa saacadaha dambe markay idinku gaadho inaad taawaashaysan kartaan waxaan ku gabagabaynayaa dhallinyaradu canaan bay leedahaye sidii cali sheegay hiddaha iyo dhaqanka aad ha loo iibsado oo hala tixgeliyo waa waxaynu ka soo jeedno wey ku soo dhawo midana wasiir gudoomiye xafideenka ganacsiga madaxda shirkadaha waaweyn ee carwadani inay dhacdo suurtogeliyey inta kalena way suurtogelin lahaayeen laakiinse imkaaniyaadkooga ilaahay siiyey ay ku deeqeen iyay un baan ku hadal qaadaynaa dhammaantiin ganacsata waad wada mahadsantihiin mulkiina hoteelka guuleed dhowr goor baa lagu magacaabay waad ku mahadsan tahay walaalayaal waxa weeyaan nabadgelyo horta mahadsanid meel ay nabadgelya ayna jirin sidani maanta aan u taagannahay iyo carwadan quruxda badan lama suurtoobadeen nabadgelyada badanka waxaa ka mas-uula dowladda laakiinse hadduuna shicibkeedu la shaqaynayn dowlad nabadgelyo ma samayso waxaan kaga gadisannahay dadka ku nool qarniga gobolkani moogtahay la yidhaahdo moogtahay qarni afriqiya waxaan kaga gadisannahay dad fiican waxa weeyaan anigu waxaan aaminsanahay meelo badan dadaaluu socdaa in nabadgelyada la ilaaliyo waa la wada jecel yahay laakiinse waxa weya weli waa lagu guulaysan laayahay waxaan kaga gadisannahay dad fiican oo iyagu nabadgelyada ilaalinaya nabadgelgala-aanna waxba inooma suurtoobeen waxaa mahadle dadweynihiinani halkan isku yimiday oo qaar aad lagu khushuucay waayo waxa weeyaan waddankeenna oo dhibaatooyin badan ay haystaan xag oqoonsi iyo xagyaabo badan in dadkeennii ay tallaabooyinka ay qaadeen
gacantooda waxay ku sameeyeen maanta halkaas sifaya waxaan filayaa sanad ama dhowrka sane ee soo socda meeshaba waxa dhulkeeda lagu sameeyey inaad ka buuxin doontiin weliba dibadaha u dhoofin doono wax markaad samayso waxa weeyaan alaqal ha yaraadaba lacag dibadda inooga bixi lahayd iyuu inoo safe garaynaya haddaad dhoofiso ood moog tahay tayadeedii la timaadanaba dee lacag dibadda moogtahan adag iyo dibadda inooga soo hoynaysiin waxaan igu boorinayaa carwadan carwadeeda in moog tahay way qurux badan tahay tani aad baan ugu khushuucaya inaa carwad moog tahay cajiiba oo weliba caalamkaad ka soo qayb gelaysiin ood kula tartantiin ay halka ka dhacdo waxaan intaa ku darayaa walaalayaal carwadani carwo aada u muhiim bay ahayd carwo qiimaysan bay ahayd carwada furitaankeedii madaxweynihii qaranka jamhuuriyadda somaliland muwali muuse biix cabdi halkan nusu saaco khudbad ka akhriyey qiimaheedu ka warramayey marka waa sharifteen dalka laakiinse idinkana waa laydin sharifay waxa weeyaan mid kalaan ku daraya dowladnimadu waxay ku dhisan tahay shicibkeeda shicibkuna kaalmuu kan leeyahay dowladdeedu ma dhaqaaqi karto haddii ayna ku tiirsanayn ganacsatadeeda ganacsatadu waxa weeyaan ta dhulka waddanku uu ku dhaqdhaqaaqayo waxaan jecel lahay iyo dowladda inaan saaxiib dhow noqono waayo markaan aada u saaxiib dhow noqono iyaa moogtahay ay noqonaysaa in moogtahay horumar la tiigsan karo dowladdu waad ogtihiinoo waxba iyaduma soo saarto laakiinse kastoo wax soo saaray waa ninka ganacsanaya intaa uu kolba la siiyo uma wax ku hirgelinaa haddii haddaba saaxiib dhow aan noqon weynana dee moogtahay annakana moogtahay hawluhu si fiican lagu hirgeli maayaan aada iyo aad baan usoo dhaweynaa ganacsatada inaad meel ka wada anba qaadno iyaguna ayna nala anba qaadaan annakuna aad baan u jecelnaha in moogtahay haddii kollay moogtahay nina keen buu leeyahay nina keen baa la leeyahay dee ninka keenle in loo dhiibo mu jecel yahay kan laakiinse keen la leeyahay dee jeebka saa hoo soo saara samtaasoo iska adkaan kartaa laakiinse noo fududeeya oo waxaan anigu halka kaga faa'iidaysanayaan leehay waddankeenna ganacsatadii waa taa waad joogtiin lama wada joogo run ahaantii laakiin waxa weeyaan caalamiyan adduunyada ganacsigu iskama furmo ulama socdano laakiinse waxa weeye markaan eegay dee dad badan oo moogtahay laysayada qaata waddanka waa jiraan laakiinse markaan laalasii sameeyey ee baali sameeyey 80% adeer waad ganacsatiinoo laysama ma haysatiine dee laysamada ka qaado oo dowladduna moogtay amnigiina si ay u ilaaliso dadka u dhaqaalayso dee nagala qayb gala waad mahadsantahay doonaa qaybinta shahaadooyinka gold sponsorska waxaan u yeedhi doonaa shirkadda ugu horeysa cidda u guddoomi doonta waxaan ka codsa inay soo kacdo waa shirkadda telesom group ومعتين تلسم جروب waxaan hadda u yeeri doonaa cidda u gudoomi doonta shirkadda dahabshiil group waxaan hadda u yeeri doonaa cidda u gudoomi doonta shirkadda las group u gudoomi doonta dp world
waxaan u yeeri doonaa mulkiilaha guuleed hotel ama maamulka oo waxaa u qaadi doonaa abaadir. waxaan u yeeri doonaa tiimka silver sponsorska waxaan u yeeri doonaa cidda ugu horeysa u qaadi doonta decoration palace. company Premier Bank. waxaan u yeeri doonaa cidda u qaadi doonta shirkadda Haas Petroleum. fadlan cidda u qaadi doona welcome to stage. hadda waxaa u yeeri doonaa shirkadda cidda u qaadi doonta Sham Factory. aad bay u mahadsanyihin shirkadaha silverka. waxaan u yeeri doonaa hadda bronze sponsorshipka qolada dhexeysa oo ugu horeeyo high tech cidda u qaadi doonta. hadda waxaan u yeeri doonaa cidda u qaadi doonta shirkadda weyne Takaful Insurance. waxaan u yeeri doonaa hadda company Al-Amin Pharma cidda u qaadi doonta. Al-Amin Pharma ama Al-Amin Pharmaceutical sida u yaqaanaa qof walba. waxaan u malaynayaa okay waan ka gudbi doonaa. waxaan u yeeri doonaa cidda u qaadi doonta Baynax Medical. okay labadii qof u dambeeyay waxaan u yeeri doonaa labada shirkadood ee aadka uga qayb qaatay qurxinta waa shirkadda Color Zone iyo Sagal Chat. hadda waxaan u yeeri doonaa shirkadda cidda u qaadi doonta Color Zone. runtii waa labada shirkadood sidaa quruxda badan ee decorationska iyo wixii daabacaada inoo sameeyay aad bay u mahadsanyihin. waxa aan hadda u yeeri doonaa cidda u qaadi doonta silkada weyn ee iyadna Sagal Chat. waxaan u malaynayaa la-aantood labadaas in shahaadooyinkan quruxda badan leh iyo environmentkan aan fadhino ayna suurtagelahayn. aad baa u mahadsantihiin. waxaan soo xidhi doona guddoomiyaha.